xafiiska garyaqaanka guud ee Somaliland ayaa ka hadlay xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ay wax ka bedel ku sameeyeen golaha wakiilada Somaliland iyo qodobada kala duwan ee ku jira xeerkan oo soo gaaray xafiiska garyaqaanka guud waxa faahfaahin ka bixiyay ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Somaliland Xuseen Maxamed Jaamac Balal isagoona ka jawaabay aragtiyo kala duwan ee bulshada Somaliland ka bixisay arrintaasi sidii sabana xeerkan ismaamulka gobolada iyo degmooyinku wuxuu ka hadlayaa oo dhisaya waa maamulkii dawladaha hoose oo la dhimida maamulkii dawladda dhexe marka waa awood la mid ah dawladda dhexe kaba badanba kaba balaaranba marka adeegyada bulshaduna waxay ka yimaadaan had iyo goor wax qabadku yahay inay dawladaha hoose ay ummadda u qabtaan saadaradeed waxa jira siyaasad la yiraahdo maamul daadejinta iyadoo la eegayo si loo dhaqan geliyo devolution waxa la yiraahdo ayaa wax ka bedelay kaabis lagu sameeyay madaxweynuhuna xilligu kaambeynka ku jiray inuu sharcigu sareeyay iyo maamuladii la daadajiyo waxa ku jirtay hal hayskiisa ahayd marka wasiirka arrimaha gudaha imka jooga intuu daraasad ay sameysay wasaaraddu ayay baahiyaha jira soo ururiyeen dabeetana wax ka bedel baa lagu sameeyay wax ka bedelka lagu sameeyay xeerku nuxur ahaan waa xeerkii oo wax ka bedel ilaa xadkaasi ma jiro matalan ba hadii la yiraahdo gobolada cusub ee la magacaabay daahiriya la magacaabay Gabiley iyo Odweyniyo kuma jiraan oo xeerkan laguma darin oo si loogu ansixiyo golaha wakiilada loogu ansixiyo sidoo kale laguma darin degmooyinkii diidaha ee faraha badnaa ee la ansixiyo la magacaabay waagi dambe iyaguna kuma jiraan degmooyinkaas dadku way had boo hadalhayeen oo kiir confuse garoobeen xeerkan goluhu ansixiyay kama hadlayn degmooyin xeerkan iyo kaabistani nuxur ahaan maxay wax taabanayaan afar qodob marnuu ka soo qaadi karaa inay taabanayaan qodobka koowaad waxa weeyaan waxa wax laga bedelay tiradii golayaasha deegaanka oo dalka oo dhan 40% baa la jaray tusaalahaan Hargeysa 25 haday 17 baa laga dhigay kuwii la midka ahay ka sii hooseeyna 13 bay noqonayaan 9 7 soo galmay marka A iyo B iyo C weeyaan degmo doorashadu dalkeenu oo 23 degmo doorasho ayaa jira laakiin diida doorasho lama galo diida 7 xubnood baa halkan loogu sii qoray ujeedadu waxa weyn marka la ansixiyo degmooyinka diida ah ee golaha wakiiladu ansixiyo wasaaradda arrimaha guud soo qiimayso golaha wasiiradu baaskareer ayaa la ansixinayaa doorasho laga galaya degmooyin cusub oo golaha wakiiladu maanta ay kala fureen iyo qaar dalacsiiyeen midna ma jirto halka lacagta iyo miisaaniyad iyo budgetka si loo sameeyay si loo diyaarinayo ayuu isna xeerkan ka hadlayaa oo waxa ku jira waana gidi sheego waxa la yiraahdaa maamul daadejinta oo siyaasad maamul daadejin oo jirtay dabeetana maamul daadejinta halkeeba ugu hooseysa la yiraahdaa devolution waxa la yiraahdaa waa ta ugu sarreysa qodobka saddexaad ee ku jira waxa weeyaan habkii loola xisaabtamay golaha deegaanka oo markii hore wad ogtihiin xuduudda ka baxeen accountability waxa la yiraahdaa hadii lagu doortay mudanaatay yes waa lagu doortay laakiin yaa ku maamulaya yaa ka sareeya yaa ka eegaya ummadii wad ogtihiin imka wax iska furan bay ahay dabta bulshadii wixii loo qabanayay looma qabanin dadkana waxay yiraahdaan waa loo soo shaqo tagay ee dadkii looma adeegayo maadaama dhibaatadaasi ay jirto si taana loo controlo waxa wax laga bedelay habkii loo ridayay meeyarka oo iyadoo halkan ku jirta aysan la xoojiyay ninka la yiraahdo xogeeye fulinta ee dawladda hoose xogeeye fulinta la magacaabay dawladda dhexe matalay ee ahaa ninkii la doonayay inuu la xisaabtamo golaha deegaanka ee uu sharciga ku hago ee ka mas'uulka ah habkii cashuura loo soo saaray iyo maamulkiiba warbixinaha sanadka iyo quarterligabana bixinayay dawladda dhexe siinayay ayaa isagii ka mid noqday saad aragteen golaha deegaanka waa la mid un bade ma garanaysaa ma Hargeysa ama Burco isku mid un marka halkaan waxba laga bedelo iyadana waa la yara cusleeyay Ismaan Axmed Ismaan Saab TV